وسؤال عجائب لوي gabadhan waxay su'aasha ku bilowday inna allaha la yastahi min al-haqq waxay tiri waxa ay qaba nin jinni ah xilli aan ismeersanina aanan aqoonin jamaacna igu sameeya si toos ahna ayuu igu yimaadaa oo markuu rabo inuu xaajo u guto waxa ay raqabata waxaad moodo hurdo yar marka ayuu hawshiisa gutaa anna toos ayaan u dareemaa hawshiisa waqtina malahan iyo goob uu kugu simayo haddii aan suuq joogo iyo haddii aan guri joogaba way isugu mid wuxuuna inacsiyay ninkaygii caadiga ahaa ee uu igu diray su'aasheedu waxay tahay kow sideen isaga celiyay ninkan jinka ah labo haddii uu jamaaco qubays miyaa igu waajibay ileen sidan ninkayga caadiga ah u dareemo ayaan isna u dareemayaa jinni iyo insise ma iskuursan karaan بسم الله الرحمن الرحيم سؤال لو سو قري ما ان dadka lagaga qosliyo laakiin waa xaqiiqo jirta culimaduna way ka hadleen wax yaradan si kooban uga jawaabo horta way suuroobi kartaa sida culimada badani qabaan in uu jinka iyo insigu isu galmoodaan oo hadda gabadh way wax hadlaysa laakiin rag waxa jira iyaguna naaga jin ah u galmooda iyaguna way jiraan qisooyin aniga soo maray baaba kamid oo nin rag yimid oo yiri waxana nahayst waan xaqiiqo jirto waay marka ragga jinsiga labada jinka iyo insigu horta ma isu galmoon karaan ma suurtagal ma tahay culimo badan waxay qabaan quraankayba weelaka wax ka helheleeno waxay u daliishanayaan aayadii quraanka fi suurati ku jirtay fi suurati ar-rahman lam yatmithunna insun qablahum wala jan dumarka waxa laga hadlayay jannada qoladan dumarkan la siiyay loogu talagalay hortood insina uma galmoonin jinnina uma galmoonin baa leeyahay meesha waxa laga fahmay inuu jinku insiga u galmoon karo culimada qaar kamida waxay u dilishay qurtubi iyo waxayba ku keeneenba aayada iyadana fi suurati al-isra ku jirta wa sharikum fil amwali wal awlad athar mujaahid uu ka keenay baa jiro ma aqaan suu sugan yahay wuxuu yiri ninku markuu xaaskiisa u galmoonayo haduusan adkaartii akhriyin bismillah allahumma jannibna shaytaana wa jannib shaytaana ma razaqtana haduusan akhriyin shaytaanku ibtu isaga maraya buu xubinka taranka ibtiis oo isku maraya kadibna islaantii wala isticmaali buu marka wa sharikum fil amwali wal awlad tafsir tafasiirta kamid adiga way suuroobi kartaa isu galmoodka su'aasha xigta inay iskuursadaan ma suuroobi kartaa jawaabtu waa maya guur ma dhaxmari karo sax ah ilma ma isu dhali karaan ma ka suurowdaa ilma jin dhalay oo aabba jin u yahay inay hooyo insiya dhasho ayaduna waa maya ma suurowdo Soomaaliyeed laakiin galmadu way suroobi kartaa culimadu saasay leeyihiin tayib dhanka waa dhankaas dhanka labaad dambi ma ku leeyahay ruuxa noocaas ee jinku uu qasbanayo ama ninka naagta jintii ay qasbayso ama haweeneyda ninka muxuu ahaayay ninka jinkii uu u galmoonayo dambi ma leeyahay ruuxaas jawaabtu waxa weeyaan inta badan waa qasban yahay ruuxaas hadduu qasban yahayna dambi ma leh hadiise laakiin aadan qasbanayn oo iska celin karto laakiin shaqadan aad u bogtayba marka dambiilata
taasi waxa way ithmi iyo dambi ma ka dhalanaya marka la yiraahdo mas'alada xigta qabays ma waajibaya dhowr xaalad loo kala qaadaya fuqahadu markay ka hadleen way ku kala aragti bedelan yihiin masaa'ilna dhowr masaa'il horay looga hadlay waxay leeyihiin haddii uu ugu yimaado hurdo ruuxu isagoo hurda iyadoo hurdo u yimid riyo bay wax ku dhaceen wax biyo ana iskumayna arag qabays markaa waajibi maayo waa ruux qarway oo kale Soomaa ruux riyooday oo kale biyana kama iskumayna arag xaaladda labaad waxa weeyaan waa inuu ugu yimaado si life ah si toos iyadoo soo jeeda inuu ugu yimaado ruux bini aadanana isu soo ekaysiyo nin caadi iska soo dhigo xaaladda iyada ah waxay la mid tahay iyadoo ruux bini aadana u galmooday oo kale ama biyaha yimaadeen ama yeesan iimaanina way qabaysan xaalad saddexaad waa soo hadhay inuu si toos soo jeed oo life ugu yimaado laakiin aysan arkin balaayo baa ka shaqeynaysa laakiin ma aragto way dhici kartaa waa xaalad kale way laakiin waa soo jeedaa xaaladda iyada haday biyo yimaadaan waa qabays haddaynan imaanin way isku khilaafsan culimo badan waxay qabaan ha qabaysato qaarna waxay leeyihiin war meesha wax la arkahayba hawl ma qabanina biyana ma imaanin see loo qabaysana qaar baa dooda qaba mas'aladaasi marka meelahaas ay mari fuqahaduna saas siyaabaha kala gedisan bay uga hadleen ama see la isaga celin karaa waxaad u baahan tahay in aad barato qaabka shayaadiinta la isaga celiyo Soomaa أذكار فربنا القرآن كسا أرورتي قابب كلا قدسنا حديث النبي كتب صلى الله عليه وسلم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إلهي نتكو عررته أذكار تمركات سيحانيسو مركات محوها هاي صوت توستو حلي والبوحي ليه هاي أذكار شياطين تلي يستقع الياجرت يمحوها هاي دعوي إن تكوها بتصوتو إلهي نتكو عررته تبارك وتعالى تاس ayaad isaga celin kartaa ama hadii ilaahay ka qabto tabaaraka wa taala aad muxuu ahay kaga fayoobaan kartaa wabillahi tawfiiq